مذ حوى آية الكتاب نوره جاوز الشمس حتى القمر يا ابنة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقاليقة أهوادين سلامي مقعيقة ورحمة هالكاد نقدا ونسان وملاك جانال maanta waxaan ka hadli doonaa sida hore idinkugu ballan qaadaybo feminismka xalaqadiisa koowaad. waxaana uga hadli doonaa ragga iyo dumarka, yacni abuurista ragga iyo dumarka. markii laga hadlayo ragga iyo dumarka ama laga hadlayo xuquuqdooda, waajibaadkooda ma siman yihiin mase ma sinno, wax waliba oo iyaga ku saabsan waxaa muhiim ah su-aal isla markaasna jawaab loo helo. su-aashaas waxay soo afjaraysaa wareerka ka jiro dumarka iyo ragga ma siman yihiin mase ma sinno. su-aasha waxay tahay, waa kuma cidda qeexayso arrimaha iyo waajibaadka looga baahan yahay? waa kuma cidda loola laabanayo ama marjica ah oo wixii lagu wareero oo la fahmi waayo intee loo celinayaa? dadkan asalkooda yaa wax u kala qaybiyo? adigana intaana leedahay, hebel intaanu leeyahay yaa dhaho? waxaasoo dhan intee loo celinayaa? jawaabta waa tana. cidda wax kala qaybiso oo qof kasta waajibaad saarto allah subxaanahu watacaala waaye. sidoo kale marjica loo laabanayo waxaa waaye alkitaab wa sunna, ama intii qur-aanka laga raadiyo ama axaadiidta nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. allah marka uu yahay cidda wax qeexayso, wax kala qaybinayso, yacni wax walba oo koonka ka jira siday u socdaan meesha loola laabanayo inay tahay kitaabka iyo sunnada. waxaa muhiim ah inaad niyadda ku haysid allah subxaanahu watacaala waa xakiim, waana magac ka mid ah min asmaa'ihi alxusnaa, yacni wax walba uu sameynayo inay xikmad ku dhisan yihiin. sidoo kale allah subxaanahu watacaala waxyaabaa uu sameynayo inaan waxba la iska weydiin karin, oo sidaan maxay u dhaceen, sidaan maxay u noqon weyse, sidaanay ku qurux badneed, yacni meesha ma taalo, waa inay meesha ka baxdaa. facaalun limaa yuriid, yani sida isaga uu doono ayuu sameynaya. sidoo kale xukunkiisa ka tabatag ma lahan, ama in yacni laga daba tago, laa mucaqiba lixukmih. sidoo kale allah subxaanahu watacaala waa caadil, wax walba uu sameynayo waxay ku dhisan yihiin cadaalad, oo koonkan isaga abuurtay, rag iyo dumarna isaga abuuray, way u siman yihiin. allah cid kale ka jecel yahay ma jirto, ama cid uga dhow. keliya wuxuu jecel yahay addoomihiisa kaarka u ah, asaga rumaysan, u cibaadeysto, dadkaas ayuu jecel yahay. su-aalahaas aan isweydiino iyo jawaabahooda markaa helno waxay meesha ka saarayaan wareerka ah, yacni waxyaabaha la xiriiro feminismka ama alxaraka nisawiya. ducaada ama dadka diinta ehelka u ahna waxaa looga baahan yahay mar waliba inay ka hadlaan arrintan keliya way ka weyn tahay wax oo la raadinayo xuquuq dumarka ka maqan. way ka weyn tahay, arrin ka weyn ayay xambaarsan tahay, oo waxay cilaaqo la leedahay caqiidada iyo waxyaabo fara badan oo mabda ah. kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka waa wax iska dabiici ah. waxyaabaha ay ugu kala duwan yihiin waxaa ka mid ah yacni fikirka iyo habdhismeedka jirka, caadifada, mashaacirta qaar way ugu kala duwan yihiin, awoodda sidoo kale way ugu kala duwan yihiin. waana wax ummadihii hore ay qirsanayeen, sida ay dhehayso maryam binti cimraan, hooyadeeda markii ay xaamil ahayd ee dhashay kadib waxay tamaninaysay inay wiil dhasho, wiilkaasna uu adeego baytulmaqdes. markay gabar dhashay waxay dhahday, qaalat rabbi inii wadactuhaa unthaa wallaahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kalunthaa. walaysa dakaru kalunthaa, inanka ma ahan gabadha oo kale, yani isku mid ma ahan. gabadha awoodda uu leeyahay ninka, ama in uu yani khidmadaas uu qabto ma lahan iyada, saasoo kale ma u khidmeyn karto. sidaas darteed ilaahay subxaana watacaala u sheegaysaa in aysan isku mid ahayn wiilka iyo gabadha. waxyaabo badanaa jiro ay ka siman yihiin ragga iyo dumarka. sidaa hore idinkugu sheegay, mar walbana aan idiin sheego, almusaawaa walcadaala farqi ayaa u dhexeeyo, oo musaawaaga mar walba cadaalad ma noqon karo, rubamaa inuu cadaalad noqdo wa rubamaa lam yakun.
sidaas darteed waxaa jiro waxyaabo qaar ay ka sameyn yihiin oo ilaahay subxaana watacaala uu ka samey. maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah insaaniyada, ama yacni bikownihim insaanan ay yihiin way ka sameyn yihiin. sidaas ayayna ku yihiin dad yacni karaamo leh, siduu ilaahay leeyahay walaqad karamnaa bani aadama. sidoo kale waxaa laga abuuray hal naf. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. sidoo kale waxay ka sameyn yihiin takaaliifta diiniga ah. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. waxyaabaa ay ka sameyn yihiin waxaa ka mid ah thawaabka iyo ciqaabka, yacni abaalmarinta uu ilaahay subxaana watacaala uu bixinayo. qofkii wax wanaagsan sameeyo in la abaalmariyo oo wanaag lagu abaalmariyo wixii uu muteystay. qofka xumaan sameeyana in la ciqaabo wixii uu muteystay lagu ciqaabo. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. sidoo kale waxay ka midaysan yihiin dhanka maaliga ama dhaqaalaha markii la dhaho, oo gabadha waxay abuuran kartaa dhaqaalo, way shaqaysan kartaa, business ay samaysan kartaa. sidoo kale waxay ka mid yihiin wiilka iyo gabadha waalidkooda markuu dhinto yacni dhaxalka inay qaybsanayaan, walow ay jirto lidakari mithla xadi luntayeyn. lidakari mithla xadi luntayeyn waxaa waaye wiilal iyo gabdho isla siman markii dhaxal loo qaybinayo. xaalado waxaa jirto gabadha ay ka badin karto dhaxalka, mararka qaarna way ka yaraataa. gabadh markaa leenahna waxaa soo gelaya hooyada, ninna markaa ka hadlan sidoo kale aabaha. way yaqaanaan dadka dhaxalka bartay mar waliba yacni musaawaa ma ahan. mararka qaar way kala bataan, mar ninkaa badanayo, mar gabadha badanayso. mararka qaar yani xaaladaha way kala duwan tahay, xasba alxaalaha loo fiirinaya. sidoo kale waxyaabaha ay ka sameyn yihiin xuquuqda iyo waajibaadka zawjiga ah iyo xayaatada caadiga ah way ka sameyn yihiin. haddii gabadha waajibaad laga rabo, ninkana waajibaad laga rabaa. ولهن مثل الذي عليهن بعض التكاليف أما بعض الأشياء كل دويهن شرعي مركي لفيري ويجرتا ركا إيدو مركا تصارحان مركا قار كورا إن لغا خفيفيو أما لغا ردبو إن صلاة وحلية ذا إيقبتو ديك عادة وانا حلية كارأة oo runtii mudan yani qof walba inuu u fiirsado. waa xaalad gabadha nafsadeeda ay isbedelayso, hormoonaadka qaar ay isbedelayaan, inficaalaadkeeda xataa aysan deganeyn. waana xaalad mararka qaar keento mashaakil oo qoysaska dhexdooda ay keeni kartaa. ragga marka xaaladaas oo kale gabadh markay ku jirto waxay u baahan yihiin wax badan inay ka fahmaan. allihii abuurtay ee koonkan keenay wuxuu ka cafiyey arkaantii ugu weyneed ee ka mid tahay salaadii, ee ka mid tahay soonkii aa laga ride. adigana mararkaas inaa u dul qaadan weysid sax ma ahan. taas waa sidaas. sidoo kale waxyaaba iyada khaas lagu yeelaa jiro sida xijaabka oo kale. ragga iyagana waxyaaba ay kaar leeyihiin. waxaa jiro diyada gabadha oo kale in laga dhigay nisfu diyati rajul inay tahay. saa hore idinkugu sheegay waa xikmada iyo cadaalada allah subxaana watacaala lagama hadli karo. allah wuxuu sameynaa inay si bilaasha iskaagama sameynin, xikmad fara badanaa ku jirto. idinka waa soo baari kartaan, waa raadin kartaan haddaa maraajiicda alkitaab wasunna haddaa ku noqotaan. sidoo kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah dhaxalkii oo sida hore u soo sheegnay lidakari mithla xadi luntayeyn waa xaaladaha qaar waay lidakari mithla xadi luntayeyn. mararka qaar waxaa dhici karto hooyada iyo aabahabo inay dhaxalka inay ku sameyn yihiin, mararka qaar inay gabadha ay ka badiso, mararka qaarna ninka uu badiyo. mararka qaar
mid ka mid ah uusan dhaxal balhayn dhici karto. qur-aanka mar waliba wuxuu la hadlayaa dadka caqliga u saaxiibka ah. meel badan oo ku arkaysa la'allakum tadhakkaruun, la'allakum tacqiluun, la'allakum tafhamuun. wax walba oo Allah subxaanahu wa tacaala uu abuurayana wuxuu u abuuray ujeedo, xikmad iyo cadaalad. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شيء كسته وحن كأبورني زوجين لا مانع لعلكم تذكرون. يعني السبب تمحيتها أو لبانا لوغا أبوري. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. آيات إلهي وحكمت نففياشي إنه ذكا أبوري أزواجا، يعني أزواجا على ذكا أبوري لماذا؟ لتسكنوا إليها، يعني استياء حسيشان. marka ugu horeyso waa aaya min aayaati illaah, waxay ku tusinaysaa cadamada ilaahay, waxdaaniyadiisa, kamaal qudratihi ee ku tusinaysaa. thumma waxay ku tusinaysaa yani ragga iyo dumarka in loo abuuray attakaamul والسكينة والطمأنينة، يعني إن isdhamaystiraan, iscaawiyaan, si yani noloshan dhibka badan oo wada caqabada ah ay iskaga kaashadaan. sidoo kale ay isugu kaashadaan cibaadada ilaahay iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhawaan lahaayeen, adduunkana horumar ay ugu sameyn lahaayeen. hadafkii loo keenay adduunka oo cibaadadii ahna ay iskula xaqiijin lahaayeen. sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wajacala baynakum mawaddatan wa raxma, oo waxaa laysugu abuuray tacaawun, jacayl iyo naxariis dhexdooda ka dhexeyso. waxyaabahaas aan soo sheegno dhan waxaa ka dareemaysaa yani ama aad ka dhex arkaysaa hadafkii iyo ujeedooyinka loo abuuray. yani qof kasta in hadaf gooni ah loo abuuray, wixii loo abuurayna yani lagu tarangareeyay oo loo diyaariyay waxaas inuu qaban karo. waxyaabo badanaa jiro ragga uu qaban karo laakiin gabadha aysan awoodin. waxyaabaa jiro gabadha ay qaban karto laakiin ragga aysan awoodin. markaa fiirisid ujeedooyinka iyo ahdaafta iyo xikmadda meesha ku jirto ama aad ka dhex arki kartidba waxyaabaha aan soo sheegnay, waxaa dareemaysaa ragga iyo dumarka asalkooda in la isugu talagalay, welibana loogu talagalay inay iska rabsadaan, dad jacayl ka dhexeeyo, naxariis ka dhexeyso, wanaag isku kaashanayo inay yihiin, oo aysan jirin wax lidi isku ah ama iska soo horjeedo ama cadow isku ah. waxaa keenay dadka inay cadow isku noqdaan dulmi fara badanaa dhacay, oo dulmiga dumarka kaliya kuma dhicin. addoomaha ilaahay markay isdulmiyeen, raggina wuu ku dhacay dulmiga, caruurtuu ku dhacay, haweenku ku dhacay, qof walbuu ku dhacay, iyo si kastana wuu u dhacay. sidee looga bixin karaa marka dulmiga? waxaa looga bixin karaa in kitaabka iyo sunnada in loo laabto, oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noqono qof kastana qaladkiisa uu fahmo. marka qof kasto ama cid kasta waxay muhiim u tahay, ay muhiimad ku leedahay, bixaddi daatihana ay sharaf ku leedahay, ayadoo kala duwanaansho oo jiro qaabka loo abuuray ama qaabka ay tahay ama shaqada loo abuuray. waxaa ka fikirtaa gacantaada 5 farood ku taalo, laakiin 5 farood way kala dheer yihiin, midaa kaaban, midaa dheer, midaa aad u sii kaaban. waxaa qiyaastaa ka waran haddii ay isla ekaan lahaayeen, maxaa ka bixi maxaa ka dhalan lahaa ama maxaa ka soo bixi lahaa? natiijada ka dhalatay maxay noqon lahayd? laba mid ay noqon lahayd. kow, gacanta inay awoodda inay kabto, yani shaqada loogu talagalay inay qabato inaysan si qurux badan inaysan u qabanin, iyo madharka ama muuqaalka gacanta oo aanan qurux badnaanin, wax wada dhaadheer oo isla eg ama wada kaakaaban ay noqon lahayd. cashirkeena intaasuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.